دكتور علي عيسى عبدي oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa waxa uu maanta shaaciyay inuu u tartami doono jagada madaxweynaha maamulka Puntland. munaasabadii uu ku shaacinayay inuu yahay murashax u tartamaya jagada madaxweynaha waxa ka soo qayb galay bulshada noocyadeeda kala duwan kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay murashax Cali Ciise Cabdi. waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galay xafladan qaaliga ah oo lagu soo dhaweynayo ama lagu shaacinayo مشارح مدحوينه دكتور علي عيسى عبدي وكو فرحسان inaan ka soo qayb galo marka koowaad marka labaadna waxa leenahay دكتور حنبليو soo dhawow دكتور gacmo furan baan u soo dhaweynayna Puntland ku soo dhawow si niyad leh oo walaalnimo leh ku soo dhawow gacmo furan tan kale aan ku dooranayna waxay tahay 18 sanadood gobolka Sool iyaga la dooranayay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan anagu codkayga siino oo aan anagu leeyahay bal hadda sharxaadda iyo halkan wixii laga waranayo aragnaye bal hadda sheeko hoosaada iyo ninkii talagal ah inaad la tashatid oo adduunyadu waa ayaama badane ayaanigo talay leedahay aad war saxa iyo tala saxa heshid baan rajaynayaa ilaahay khayr hayna waafajiyo. دكتور علي عيسى عبدي oo madashaasi soo afbeeray ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha iyo waliba sababaha ku kalifay inuu isu sharaxo jagada madaxweynaha Puntland 2019. waxa weeye dhowr qof oo hadda maanta madashan ka hadlay waxay yiraahdeen waa 20 sano ay qaadatay inuu la gaadho hal qof hal cod in la gaadho nidaamka caynkaas waxa aan dhammaan ka dheregsanahay baahida loo qabo maxaa jira waa maamul wanaaga ayuu dhidibkiisa koowaad yahay sidaa darteed wax program oo hadda aan leeyahay dariiqana loo maraya maahina waxa weeye arrimaha masiiriga ee looga baahan yahay qof kasta oo hanta maxaan idhaahdaa hoggaanka Puntland waxaan dhammaan kaga baxayaa mahadnaq ballaaran oo buuxa aan leeyahay labada kelmadood ee hadda meesha ku qoran midnimo iyo maamul wanaag waxa aan uga dhiganaynaa wax lagu hirto waxa aan ogahay inta aan adduunka ka shaqeynay 30 ilaa 40 wadan baa ka soo shaqeeyay kuwa geeska Afrika kuwa Southern Africa kuwa Aasiya dalalka Carabta waxa ugu aan laga maarmaan ahayn oo biyo ka dhimaanahay waxa weeye haddii aan la helin waxa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen khayr Allah siiyo Allah u naxariistay uu ugu yeeri jiray karti iyo hufnaan lagu maamulo dhaqaale waxaan ballan qaadayaa sidii isimadii hadda ka hadlay halka ay ku dareen inaanan dan shakhsiga ugu socon noocay tahay toonna musharaxnimada haddaan ku dhawaaqay waxaan ugu socdaa waxa weeye inaan wixii awoodayda garashadayda aqoontaydu ay siinayso aan ku maamulo hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday arrimo bulsho tahay waxa la yiraahdo karti iyo hufnaan waayii mahadnaqayaa سكرية محمد عيسى ودني ورقة تلفزيون كسومالي نيوز قروي.